waanu mahadcelinaa warreyn gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen inay tixgelin iga dhigeen in mar labaad amba mar saddexaad ii soo magacaabaan inay golaha hor keenaan habdhowraha golaha shacabka. runtii waxaan u arkaa fursad inay ii tahay inaan wax ka barto wixii hore aan u sii yaqaanayn inaan sii kobciyo oo ah nidaamka la shaqaynta baarlamaanka iyo horumarintiisa. marka runtii waan u mahadcelinayaa gudoomiyaha, anigana waxay ii tahay tixgelin bay ii tahay. mudan habdhowr shaqada habdhowrnimada ee golaha shaqooyinka kale caadiga golaha uu qabto intay kaga jirtaa habdhowraha oo kale shaqadiisu maxay tahay? habdhowruhu Soomaaliya male axzaab kala duwan, dalalka axzaabta leh xisbi walba habdhowro gooni ayuu leeyahay. maadaama golaha shacabku uu yahay midaan ku fadhin nidaam xisbiya, hal habdhowro ayuu madax u noqonaya iyo laba ku xigeen ayuu leeyahay. shaqo ahaanna wuxuu qaabishan yahay duruufaha ugu adag ee golaha oo ay ka mid tahay ugu horreynba xaaladda amni inuu ka warbixiyo ee ay ku sugan tahay xaruntu. sidoo kaleeto xaadirinta xildhibaanada oo xafiiskeennu uu yahay kan xaadiriya inta tiro joogta baarlamaanka iyo inta maqan iyo qaabka loola tacaamulayo. sidoo kaleeto habdhowrku wuxuu qaabishan yahay baarlamaanku sidaad ogtihiin wuxuu leeyahay munaasabado u gaar ah, hadday noqon lahayd safarada, hadday noqon lahayd xaflado iyo munaasabado lagu casuumayo guddoomiyaal kale oo baarlamaano kale ama kuweennu ay baxayaan. nidaaminteeda iyo dabagalkeeda waxaa ka mas-uula xafiiska. sidoo kaleete xafiiska xaaladaha qaarkood waxaa u diraya guddoomiyaha sida uu kolkaa u arko inuu xafiisku u qabto. marka shaqada ugu mugga weyn oo ay ka mid tahay xafiisku inuu dabagalo hantida golahu u leeyahay, hadday noqon lahayd mid deegaana iyo hadday noqon lahayd mid maaliyada intaba. xeeroosaadka ayaana kulligood ay ku faahfaahsan yihiin. sidaas ayuu marka u yahay xafiisku mid muhiim u ah golaha iyo nidaamkiisa intaba. runtii shaqooyinka uu qabtana waa shaqooyinka ugu xasaasisan. saa darteed marka waa shaqo u baahan qofka ka shaqaynaya inuu taxadar badan muujiyo. baarlamaanna waad garanaysaayo isaga ayaa isu madaxa oo qofka xildhibaankii wuu ka duwan yahay qof meel kale ka shaqeeya ama hay-ad u shaqeeya ama wasiira, waayo waa qof isagu meesha ugu sarraysay jooga. saa darteed marka shaqo adag oo culays badan oo u baahan taxadar iyo tixgelin weeyaan.